ay qabaan oo magaaladii dareen ka qabaan oo dhulkeenna aad maanta arkaysaan dhibtayna haysato Soomaali iyo Soomaaliland iyo kuwa kale aan kala soocnayn oo qabyaaladiina go'goosatay oo qof shaah haduu kula cabayo strange leena faallo tan hargeysa ka sheekaysanin haduu qof ku yimaado qofka runtii ilaad ogaato gobolku ka yimiday siyaasad lama soo hadal qaadi kartid bilaa waxaad leedahay inuu reehbel ahay oo dhibsay ka marka aad iyo aad waan soo dhaweynaynaa arrin naga maqnayd baad noola timaadeen oo ah wacdi xagga qabyaalada waa sida la yiri mowduuca haduu ka yahay runtii waana fiicanta cudur Soomaalidu laba cudur bay leedahay waa qaadiya qabyaalad labadiiba maanta waad arkaysaa midna lacagteennii bay qaadanaysaa midna halkay nagu googoynaysaa jaamacadda magaceeda aanu ku hadlay waan soo dhaweynaynaa waxa ugu qiimo badan in meesha ku haynaana daarahan meex waa dadkan deeyagii baanu idin dhibnaa maanta ku soo dhawaada alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in hooyooyin wiilal iyo gabdhaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh hooyo halkan waxaan u nimidnay annaka iyo haweenka aad arkaysaan waxaanu nahay mutadawiciin waxaanu nahay gurmad waxaan u ka gurmanaynaa oon u gurmanaynaa waxa weeyaan dhalintayada yar ee maskaxdoodu nadiifta tahay ee caafimaadka qaba ayaan gurmad u nahay si aan uga badbaadino fayraska qabyaalada waxa la yiraahdo runtii anigu waxaan u arkaa Soomaali oo dhan inay tahay qoys kaliyaata qoys inay tahay iyaan u arkaa qolo iyo qabyaalad iyo qurunkaasi maanta Soomaaliya waad arkaysiin Soomaali halkay kala tagtay imisa badda galo badda ku dhintay dhalinyaro dhigiina ah imisay xabadilaysay imisay daara ku dumeen imisoo daad qaaday imisa gaajo u dhimatay wax badan baa u dhintay halka maxayna gaarsiiyay waa qabyaaladaynu isku dilay wax kaloon isku nimidnay ma jirto dad isku diinaanahay oo isku afa oo isku jinsi ah ayaynu nahay maxaan ku yiraahdaa gaala lamaynaan dagaalamin ajnabina inama qabsan kaliya waxa halka ina gaarsiiyay waa qabyaalad qolo iyo wax dhintay waxay halka ina gaarsiiyay waa cudurka haddaba waxaan maanta martidiin ka nahay in aad naga aqbashaan codsiga halkaan niila nimidnay oo naga daacada in aad hooyo qalbigiina iyo maskaxdiinaba ka saartaan wax qabyaalad la yiraahdo inaad ku walaalowdaan islaamnimada inaad ku walaalowdaan jaarnimada inaad ku walaalowdaan saaxiibtinimada inaad qabiil ku ahaataan asxaab jaar maxaan ku yiraahdaa diinta islaamka iyo shariicadeena dhaqankeena intaas inaga filan qabiilan sheegano laakiin reer hebel wax macno inoo sameynaysa ma jirto way ina marisay waxaan markaa doonaynaa inaan inaga daba qabatayno jiilka yar ka daba qabatayno xumaantaas wasakhaynaysa maskaxdooda qalbigooga jirkooga intaba wasakhaynaysa mar walba waxaan diyaar u nahay wax kasta oo wanaaga oo ay maaragtay ay ku farxayaan dhalintayadu bulshadayada dadkayaga oo dan inoo ah ayaan diyaar u nahay waanan kulmi doonaa in badan maanta oo kaliya hata ma waxaan idinka codsanaynaa inaad gelisaan niyadda barnaamijka aan idin sheegayno wax alla wuxuu inoo soo sidaa qabyaalad ma jirto laakiin maalinta aan iska tirtirno ee aad ku saaxiibno ku walaalowna saaxiibtinimada iyo jaarnimada iyo islaamnimada aan ku saaxiibno walaalo ku noqono maalinta meel baan gaadhaynaa haddaba dhalinyaroy waxaan idinka codsanaynaa caruur yar baa tihiin inaydaan ku dayan dadka lafta iyo dhiigga ay ka raacday fayraskaas oo ka raacay odayaashaysa soo taagay haddaan reer hebelnahay lee ku dhaata islaamnimada ku dhaata jaarnimada ku dhaata saaxiibtinimada haynugu dheeraato ilooba mala qabyaaladi waxay dumiso mooyaane waxba idin tarimayso waxna inoo tarimayso dhamaanteen
waa Soomaali waa taalka dhigtay waa taburburisay waa tabaabisay waa taqoxootiga ka dhigtay waa taa meelina degila reer walba halkii yariidu u dhashay waa ka ku soo ururay qoobada ee la wada taagan yahay ummadii balaadnayda mid walba meel ka dhacay waxa weeye anagu sheeyaan ku kornay qiimaha reerku reernimo waanu garanaynaa bahashaas reernimada iyo helnimada way lumisaa hooyo iska ilaaliya oo iska jira oo idinka wada walaalaa idinka ehela waxa weeye xaafadaha u sheega hooyooyinka u sheega waxa tirada naga daay anagu waxaan hay aqoon-yahano maskaxdeedu xarbay ka tahay qabiilka ka qabta dadka aweer gareey waxaan rabnaa mid kasta message-ka oo idin kamid inuu u gudbiyo bulshada qof walba gurigu ka soo baxay 7 qof 5 qof 6 qof kuloo lihiin inaad xaafadeeni 9 firqa u kala gooday iyo abtiye eediyeen adeerbaynu wadanahay reero kale fog weemaniin dhamaanteen 5 qof isma tirsano inteeni hadii la kala diray ka warrama xageen tagaynaa aan soconaa kuwa wehelkeena soo mooday jaamacadda idin la dhiganayay halka ka soo waxay soo rarayaan kuwa iyagii baba soconaya maxaa laga soo doonaya sumcaddii hal soo celiyo sumcaddii guud hal soo celiyo waliba waynu fayoonahay dad badan waynu dhaanaa waynu waxbay maqlaysaan waad wanaagsantiin dad badan oo aan ogahay waad ka wanaagsantiin waxaan idin sheegay hooyo inaad noqotaan caruur isku xidhan caruur wanaagsan caruur qalbi fiican si saraaxad leh wax isugu sheegta xisbiyada siyaasadda waanu baahnahay waa loo baahan yahay siyaasadda lagama tagayo waxaan la jaan qaadaynaa waxa weeyaan inaad ku xisaabtanto waxa Hargeysa ka dhacaya inaad halka cadkaaga ku qaadataan doonaya anigu de odinka yare jaamacadda Hargeysa ku jira la dhigi karayso oo wuxuu doonayay rabitaanka ku jira iyo fikirka ku jira iyo damacu leeyahay inaad yeelataan baan doonaynaa oo idinka together mid ku guuleysanaysan isku la socdo oo wada jira inaad guuleysataan baan aanu jecelahay iyo aad u jecelahay ilaahay idinkiina waan gaadhaynaa waa hadaynu kamida dhalino daacad ka noqotaan inaan fayriska dabargoyno haddaad intiina sinala qaadataan waan dabargoynaynaa waxba yaynaan been isku sheegin qabyaalada waxa lagaga tagaa markaad aayadka ilaahay fahansan tahay markaad rasuulka siiradiisii fahansan tahay calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu isku keenay intaasoo ummada oon qofna qof la wadan ahayn oon la qaarad ahayn ayaa noqotay uliya diirkeed inagoo uliya diirkeed rabbi inaga dhigay inagoo Soomaaliya wixii la doonaha la kala sheegto taasi aniga hawlii taala maaha waxyaabaha la kala sheegta anu waxaan aaminsanahay inaan Soomaali ku dhashay Soomaalina ku dhimanaya maxaa ka weyn magaca Soomaalida waxba ka weyn oo ina walaaleeyay maxay tahay al-islaam Soomaha subhanallah marka waxa weeyaan ceeb idinku tahay ama adduunka kala hal joogo ama boorama hal joogo dad islaam sheeganaya dad islaam ku dhashay oo aan diintoodii su'aalaha qaar marka la weydiiyo asaasiyaadka al-asaasiyad waxa weeyaan aan ka jawaabi kareynin oo ku soo eegaya secondary school baan ka baxay jaamacad baan ka baxay master baan sameeyay PhD baan qaatay rasuulka siiradiisina ma aqaano ma soconayso hooyo qabyaaladna kama tagaysid bayaan la isku sheegin waxa weeyaan idinkoo cilmiga maadiga dhiganaya oo waxa weeyaan adduunka maanta waxa lagu kala badiyay waa cilmi maadiya laakiin cilmiga maadigu halku ka yimid waa su'aaliya ka jawaabi kara al-islaam barakallahu fiik islaam buu ka yimiday taariikhda islaamka waa inaad ku noqotaan hooyo waxa weeyaan waxa ku faanaya maanta timaha maxaad ugu xiiratay inanka yare ku badda ciyaara ee mataqaana ama Spain u dhashay ama Brazil u dhashay tinta sidoo u xiirtay maxaad ugu xiiratay layna waxa weey taariikhdaadii baad jaahil ka tahay taariikhdaadii baanad waxba ka garanaynin isagu inuu kugu daydayahayd ma aha inaad adigu ku dayato adiga ilaahay ku karaameeyay adiga ilaahay ku sharfay adigu ilaahay muslim ka dhigay muslimkiina maxay noo dheer Soomaalinimo inoo dheer marka ma aha in siyaasiyiintu inagu kala qoqobato maxayland runtii wax maxay loojiga maaha waxa weeyaan meeshan doonaha laga yimaado waxaan doonaa aan sheegano laakiin Soomaali baynu nahay annagu siyaasiyiin waan ka madax banaanahay qabyaaladna waan ka madax banaanahay ilaahayna waxaan idinka baryayaa hooyo waxaan ahay iska kulul mar walba dagaalanta halkaad ka timaad halkaad ku socotaan ee aad u wada maraysaan maraakiibta aad u raacaysaan aad ku dhimanaysaan 30 sano soo joogtay laakiin wallahi al-cadiim noloshaydu waxay tirsan tahay 8 sano ee boora ma joogo waa hadaad rumaysanaysaan magacii rabbi baan idinku dhaartay nololima taala halka lagu socdo laba qof mar hore aan sheegay oo jaamacadda Amuudiya meel kale ka sheegay laba qof oo kaliya ayaa tagi kara wadanka aad u cararaysaan waa qofkii cilmi ka soo siyaadsanaya aan wadanamada islaamka lagu aqoonin oo waliba u soo baranaya inuu wadankiisa u soo noqdo illa inama al-a'malu biniyat budi nabigu alayhi salatu wasalaam markaad sii socoto hadaad u socoto cilmiga aan halkan oolineed soo baranaysa inaad ugu soo noqoto wadankaaga ajarkeedii baad leedahay iyo qof buka
oo loogu waayay Afrika caafimaad labadaa qofba ina qorba la geeyo waajiba intiina kale maskaxda waa inaad ka saartaan qorba waxba ma yaalo inantiina dharka ku maydha xataa hooyada oo miskiinada oo iibinaysa mataqaan dhuxul iyo tamaad haddana gabadh walaashaaya oo ka yar adigoo 14 jir 8 jir bay kuugu dirtaa inay dharka ku maydho oo waliba lagu kaawadeeyo inankii dharka ma loo meeday ma loo kaawadeeyo halka nimcaad ku jirtiin nimca ilaahay baad ku jirtiin laakiin ma ogidin allah idin ogeysiiyo halayga raali ahaado dhaqankayga iska sidaas markaan hadlayo waan iska diriraa waan iska kululaadaa marka wax weeyaan waxaan idinkaga tagayaa hooyo in ilaahay diintiina idin baro inaad diintiina u soo noqotaan biidnillaahi raxmaan hablaha waxaan leeyahay allah idin barakeeyo hooyo hablaha ay namadaan isla dhiganayni qabyaalad lama baaqooma waagaan walaalka buha waana lagu wada jiro saymka aad looga yimiday ilaa meel kaste ayaa dacmuud u furnayd cid walba oo laga dhiganayay oo liimin daybay iyo namad maxay boarding bay namad ku dhigan jireen marka man aqoonin qabyaalad waxay tahay qofka ku ag fadhiya walaalka buha walaasha bay hayd inamada waliba meelaha kala shishe ka yimiday ama Sayla ama maxay ahayd Jabuuti ama Hargeysa Burco ilaa Dayaxa ayaa laga yimin jiray iyo in ka shishaysa walaalaha yumbe wada haayeen dadku saas ay isku mid ahaayeen maanta waxaad moodaa inay tashwiis la inagu furay marka qodobka maanta oo nimid hadaan soo dhaadhaco waxa weeyaan waa qabyaalada wad arkaysaan wadankeenii dhammaan say u dhantahay Soomaaliya oo dhan iyo Somaliland intaba inay isbarad garaysay oo ay ku fiday iyadoo si xun loo isticmaalayo madaba taasaan idinka nimid hooyo oo aniga maxay inay suntu gaadho awlaadayadii iyadoo bahal la isticmaalaan ahayn oo aad iyo aad lafaanan faa'iido ku lahayn nin qabyaalad kaashadayna faa'iido uma leh ka maanta ayaa iskaga kindhow buuga iyo horumarka ayaa idin wanaagsan waayo waad ogtihiin horumarkeennii halku marayo waynu qaadan lahayn wax kastaan samaysan lahayn mid walba haddaad Hargeysa dhisto iyo haddii aad Boorama dhisto iyo haddaad maxay ahayd Jaara horata dhisto iyo haddii aad halka u dambaysa Soomaaliland ceergab wax ka sii aad dhisto waa same bay ku tahay waxaad ku dadaalisaan on anu leydin sii sameeyay anu waxaan idin leeyahay sidaynu waxaan doonaynaa inaad nagala kaashataan qabyaalada xun ee baan ee sunta ah ee fayriska aad dadka u galay ah inaynu ka daweyno ayaa hadaba ka daweyn kara waa dadka mutacalimiinta ah waa dadka indheel garata waa idinkoo miiran oo garanaya sida maxay ahayd haddaanad maanta aanad buuga garanaynin qabyaaladiina aad wado tacliintii aad baratay waxa weeyaan waa cidla lagu maxay ahayd daadiye weeyaan hadaba waxaan idinka aan codsanaya hooyo idinkoo iskaashanaya bahasha sida aad nooga maxay ahayd aad noogala dadaali kartaan qof walba halkiisa uga maxay ahayd biin karo uga dadaali karo inaynu ka wada dadaalnay hadalkaasi miyuu mayni galay misayni ma galin ma nagala kaashanaysaan wax ma nagala qabanaysaan tiyo mid walba halkuu joogo oo ka kalena u sii biskareeyo marka cilmigiina aad kaashataan cilmigii maaha read and write waa inuu ku furo oo ku tuso aragtiyaha wanaagsan fishanka fiican maxay inaad ka duwanaataa qofka aan waxba baran iyo hadaba ayaa ka duwaya ayaa se wax baraya wax sii baraya waa idinka oo maanta stage-kii u sareeyay inta indii dhiman tahay oo ina tacliintu sii dhamaanin idinka hadaba ka badan mujtamaca waxa ka badan waa hooyada iyo inankeeda iyo inanteeda marka inagu hadaynu waxa qabano oo inu ka kaashano waxaan malaynay bulshadii waa intii walkii asaaska ugu wanaagsanaa waana asaaska ugu khatarsan hadii ay gasho haday idinka idin gasho waa ta ugu khatarsan waayo walaasha oo ku ag fadhiyo walaalkaaga ku ag fadhiya hadaad ka jeclaato ka adiga kula dhashay ma tahay qalad mise qalad ma